وميل داد جيل oo jeel dad ku xiran yahay oo karbaashku ka socdo oo jeemanka waaweyn lagu garaacayo dadka oo cabaadka ka yeeraya labadii dhagood gawa baa iga yeedhay ummadda halkaa ku xirxiran jinni iyo muslim dadku waa isugu jiraan jinni iyo insiba ilaahay baa awoodiisa ugu tusay subxaanahu wa tacaala gaal iyo muslimba dadku waa isugu jireen qolol dhan oo saa u safan baad arkaysaa darbi dheer oo aan la fuuli karin baa dhinacan ka ah intaas oo tarsiga derbiga tarsiga hoostiisa guriga ku yaalan waa guriga gaagaaban oo xayna ilaa 6 ilaa 7 waa buuxaan albaabadooda hore waa bir shabaq loo qof ay saab ay wada haystaan iyaga ooyaya oo cabaadaya oo qaarna allow buu baleeyahay waa muslim qaarna Jesus Christ iyo balay ku qaylinayaan iyo waxaan la garan karayn ilaahay baan bariyo waxaan ku waa alban u naxay alban u khalkhalay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال سلامتاس آتك وقيمة بدن كدب رمضان كريم إن شاء الله تعالى عاوة وحائنو بلابنا سبيش رمضان إلهي وحن كبر يا عز وجل إنو نوافجي أعماشة تدعو عن نغانا أقبل ربي سبحانه وتعالى وحن قصة إذا كسود حقنا ولا ليال إن أغيسيس ولا لها رير يوروب يوروب جوغا سافر كي رمضان كدب أنا وإيمانيا وليسي جري سبب جري درتود وأن كباقضي سيدو كلا ولاليه أستراليا أسو سعودي waan kasoo tegay Australia waxaan joogaa dalka Kenya insha Allah taala walaalihii damacsana inay Australia yimaadaan waa ay u bedelan karaan safarkooda Nairobi Kenya waxaan joogi doonaa insha Allah taala waqti aad u gaaban saan rajeynayo safarkii markaan baxayna insha Allah taala idin la socodsiin doonaa waxaan igala soo xiriiri kartaan nambarada kala ah 254 741 2800 05 haddaan ku celiyo waa 25 47 41 28 eber 5 ka kaletana waxa weeye insha Allah taala waa isna sidoo kale 2 5 4 71 eber 3 57 31 sideed baa u dambaysa haddaan ku celiyana waxa weeyaan waa 254 710 357318 insha Allah taala halkaas aad igala soo xiriiri kartaan ciddii markaa u baahan booking inay samaysato walaalaha waxaan la hadlayaa markaa safarkoodii uu Australia xagga u soo socday walaalayaal haddii aad wax dhiba kala kulantaan walaalaha taleefanka idinka qabanaya waxaad wixii cabasho ah ama dacwo ah noogu soo diri kartaan emailka shaashada ama muraayada screenka hadda ka muuqda ee ah dacwo.ruqyah@gmail.com haddii aan ku ceshana waa dacwo.star.ruqyah@gmail.com إن شاء الله تعالى ولا ليال قصة هذا أن هردع هانت وسقيت هذا أن هردع هانت وسقات قصة وحي كهالليس إن شاء الله تعالى حبسيو لو سميستي إن لو جردلو لو عقابه جنك مركا ديدا شقادي لو دري سحرك مثلا مركي قفك لو سميو جنك لا ديرو قفك هدو عبادة بدن yahay ay soo cararaan meelihii loogu talagalay in lagu ciqaabo si shaqadooda ay u sii wataan waa xabsiga hadda insha Allah taala maamud ay soo qaadatay qisadana gadaal baad si fiican uga fahmi doontaan dhageysi waan insha Allah taala ilaaha naga dhigo kuwii ku cibra qaata oo ka faa'iideysta wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال سلام آدو سرهيس كذب عاوة سيدي هربا أنو قبرتين برنامج يدين إنو سعون جري أها أود الله سبحانه وتعالى إنو قرآن كي هيداو وحن ما نتعاوى إن شاء الله تعالى مرتي إنو هو يسومالي دون كسو دوينيا إن إدو واحد إنو قورنتا وحاكو داوانا يدد آدو فربضان ولا لها كميدا ودور كنو قفا دعادو إن شاء الله تعالى كسو قاري دونتو عبرنا أي نقول دونت أود ربي سبحانه وتعالى أوجش كينيسو مرك إن شاء الله تعالى كسر برنامج كيني أود الله سبحانه وتعالى إنه قرآن كيه داو بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وان دوهي إيدو وحان ربا إنان كهالله معجسوينك إلهي وآد ووين بدنا دادكو يقين سنين داد بدنا أين يقين سنين لكن وح عجائب وما ركتي مسكح بن آدم كوي
in rabbigana wax kasta ilaahay inuu wax walba awoodo oo maaragtay awood laha weyn uu yahay baan halkan ku arkay ما شاء الله mucjiso weligay aanan arag maskaxdayda ku soo dhicin ما شاء oo الله ilaahay inuu baawarka intaa la eg leeyahay aanaba aqoonba xaqiiqatan markaan u hadlo سبحان الله ilaahay baa nastahan subxaan allah intaadan awoodda alle iyo mucjisooyinka iyo layaabka lahaad aragtay aadan u gudbin waxaan jeclaan lahaa marka hore bal xoogaa inaad noo dulmarto maxaad soo martay inta aad xanuun aad dareemayso dhan bal wax yar inoo dulmar kadibna waxaa kugu khasbay in aad qur-aan raadiso iyo waxaad la kulantay marka arrimaha layaab kale dib baan u dhiganayna insha allah tacaala wax yar waxaa inoo dulmartaa maxaad soo martay jasaakum allahu khayran waxaan soo maray eedo waxaan ugu yaraan 27 sano baan xanuunsanaa 88 ba xanuunkaanu bilaabay waa soo kala heerar adkaa marka aad baaban u yaraa markuu xanuunku bilaabay waxa weeye isbitaal baan ku wareegaa isbitaal Soomaaliya isbitaal baan ka aaday Kenya isbitaal baan ka aaday Zambia isbitaal baan ka aaday South Africa isbitaal baan ka aaday Malawi isbitaal baan ka aaday Mozambique isbitaal baan ka aaday inta anoo qaxooti ku oo wareegaya oo caruurta wadaba hadana xanuunka kan wuxuu igu dhigay xanuun mucjiso ah oo ahaabada oo dhaqaatiirtii garan weyday oo anigii la wareeray waxaan u malaynayaa 27 sano maba seexan jirin hurdaba waxa igu horeysay maalintii halkan quraanku igu bilowday baan hurdo caadi oo bini aadanku seexdo waagii hore aan seexan jiray aan xasuustayba ilaa maba seexan jirinba niyow xaaladdu ha kala daraato hadba meel aan marno dhaqaatiirtii wax weyday halkan hadda Melbourne intaan imid waxaan sanad iyo bar baa dhaqaatiirtii igu samadhay midba ii gudbiyaa mid walba wuxuu dhahaa waxba kuguma hayo midka ka khatarsan buu ii gudbiyaa intaasoo MRI baa la igeliyay nakata gabadhan wax ay qabta male buu yiri dhakhtarkii ugu dambeeyay wuxuu yiri gabadhan wax ay qabta haba yaraatay ma jirto qof ka caafimaad badan hospitaalka Melbourne iguma aha customerskayga maba ku jiro waa adba caafimaadkeedu 100% u yahay waa kuwa Australia jooga Melbourne waa Melbourne waa hal sano iyo bar baa waxay ku leeyahay waxba ka weyn waliba anna waxaan xanuunsanahay waliba hal sano iyo bar 9 bilood wheelchair aan ku socday wheelchair baan ku socday subhanallah ma garanaysaa waxa la iga qabtay labadii lugood inkastoo dhinaca midigta u badnaa waxa la iga haystaa dhabarkii waxa la iga haystaa dhuuntii waxa la iga haystaa madaxa adigu inta qaar ka hor aba igu daray minid igama xanuunku igama dago waxaan suubiyaa marka culumadii markay ii cadaysay inaan meeshan xanuun dhakhtar oo waxaan ku yiri ilaahagii ku abuurtay maxaad ugu hormar weyday maxaad ilaahay u dhaaftay anigii baa isla hadlay dib aan isugu noqdo bar horta allahaagii u noqo haddii waxaan shallaayay an allah ku hormari lahaa intaas oo 27 sano aan dhakhtar wareegay waxaan shallaayay maxaad ilaahay ugu hormari weyday markaasay igu soo dhacday inaan raadiyo Facebook-gan waxaan ka arkay Sheikh Maxamed Istaar Ruqya markaasaan Sheikh Maxamed Istaar Ruqya waa inaan helaa waa kan ninkii dawadayda ku jira 4 bilood aan ku raadinaa ilaahay quraankiisa ku jira laakiin adu sababkaaga soo dhig waxaan ku leeyahay niyow quraankaas saasoo tahay ana inta isku tufaay dhowr sheekha quraan la iga saaray South Africa quraan oo sheekha iska saaray Sheikh Maxamed Lado Malawi Sheikh Musa iska saaray haddana Brisbane Sheikh Musa oo iska la nimid qaxootiga iska saaray wuxuu igu akhriyay quraan ciida ka badan waxba iga degay laakiin ma ku caafimaad isaan rabay ma noqon waxa dhacday marka xanuunkan aad buu ii dhibay muddo ijiidanayay dismoral baan noqday waxaan iri bas waaye dhaqaatiirtii waa ka samidhay Soomaaliya iska aad meelaha tuulooyinkaaga iska joog intaana sheekh meesha ku aran ka hor sheekhi markaan u imaaday quraanku isaaray waxa waaye dhowrkii hameen oo dhan daba i haystay waa miyir daadsanaa waxba ma maqlayn dhaguhu waa i xiraayeen indhaha wax kaba arkayn 3 baro hore situationkaasaan ku sugnaa
inkastoona sheekha u sheegin haddana waxaan lahaa qur-aankii baa wali socda oo waqtigii ma dhammaan. waxaa bacdil mucjisadii wixii ka dambeeyey habeenkii ugu dambeeyey ee 6dii bari baan wareeray. qur-aankii baa sheekhi igu akhriyay, ilaahay baan baryay, magacyada ilaahay oo dhan baan daldalay. marka 3 beri normal ma ahayn, waan wareersanaa. habeenkii afraadna waa miyir daadayba, waxaan ogaa ma jirin. dhulka un baan isla dhacayay, ma isqaban karo, waa ujeedaa. xiskaygu caadi ma ahayn, maskaxda dabaa iga baxaayay, gacantan way dhimatay, way baktiday, bes waa inay qallashay oo annaafobayaan mooday. lugta waa la mid, laakiin lugtaa la ii qaatay, gacantan waxaan idhi bes way dhimatay. naafaa isu goleeyay niyaho, naafo. allah subxaanahu watacaala rabbilciisa jala wajalaaluhu aa i caawiyey, ilaahay baa i caawiyey, ilaahay baa ii soo diray awoodiisa powerful oo rabbi baan arkay. mucjiso wixii dhakhaatiirtu weyday 4 beri baa waxaa iga degay waxaan caadi ahayn. tuura inta ku lahaa tuur waxaan ku lahaa, sawirkeeda wuu yaalaa, gurigu yaalaa. dhowr jeer aan idhi maandhooyow sawira, waa intaasoo ilaahay farji ii fure. gurigaa la dhigay, tuur inta iga saareey oo surka agtiisa ilaa halkaas, ilaa labada garab dhexdooda, tuur intaa la eg baa iga taallay. dakhtarkii markuu saaray raajidii, ma jidhuu yiri tuur, wax meeshaan ku jira male, waa sax jirkaagii. okay, mucjiso badanaa marka aniga arkay, ilaahay awoodiisa. sheekhi markaan u imaaday habeenkii u dambeeyey, tuurtii 4 markii loo qaybsho 3 waa tagtay. waa ilaahay awoodiisa, powerful. ilaahay waa powerful. marka dadka moodaya allah inuu mataqaanaa uusan waxba awoodin, wax walbuu awoodaa. tuurtii baraa iska dhacay, dabkii gacantii iyo lugtii way wateen, laakiin intii hore markaan guriga aado xoogaha intii hore male, way iska fiicnaanaysaa, laakiin dabkii weli wuu i haystaa. habeenkii xalay ahaa hadda oo axadu dhammaantoo mandhaydu soo gash, indhahayga ma isku seexan. waagaa ii bariyey, qur-aan baan akhristay, ruqyo ayaan geystay, dhegtaan saartay, waa iiga daray dabkii, waa iska damiyey. waxaan ka ruqyo aaya waaba iiga dadhe, bal demi. baryaan u jeestay, 2 ragcaan tukaday, ilaahu iga biyi, ilaahu iga biyi, ilaahu awoodayd meelaha, addoon daciifaanahay, ilaahu powerfulkaagii aaw, ilaahu powerfulkaagii aaw. ilaahay subxaanahu watacaala subxiga markii la tukan rabay uu iga qaaday. subxigii baan tukaday, waa iska seexday. marka sheekhan uu imid maanta caawa waa soo kacay. sheekhii baa ballan la lahaa, qur-aan baa la isaaray. mucjisadii iyo powerfulkii ilaahay aan caawa la kulanay. yaqiin aan caadi ahayn, yaqiin aan caadi ahayna caawa gasha. caawa iimaankayga wuu buuxaa, caawa laafuu ahaa. marka maba lahayn ilaaha awoodaanito baa kugu samaynaya mucjisadan. caqligayga ma gelayn, weligay iguma soo dhicin. mucjiso weyn oo weyn oo weyn oo ballaaran baan arkay. wax yar aan ka dhex galo walaalaha nala socdo baan rabaa insha Allah tacaala inay wax badan na fahmaan, hadallada qaar kamid aan saxo. walaalayaal, marka ay maamadu leedahay يعني waxyaaba aan maskaxdeeda ku jiro aanan ogeyn oo islahayn waa dhici karaan baa dhacay, yani ma aha awoodda rabbigeed ka shakisanta subhanahu wa ta'ala. nabiyullaahi ibraahim alayhi salaam sidaan la socono, markii uu Allah subhanahu wa ta'ala la hadlay wuxuu ku yiri oo Allah tilmaamay subhanahu wa ta'ala suuratul baqara, wa idh qaala ibraahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo tilmaamay ibraahim inuu su'aal weydiiyay rabbigii subhanahu wa ta'ala oo yiri Allah waxaad i tustaa sida aad wax u noolayso. الله سبحانه وتعالى وحينو تلمامي إن وجوابي إبراهيم عليه السلام مركو الله ويديو يري إبراهيم ما شكي بكو جرا أولا تؤمن ميانا رميسنين أو حنولي إبراهيم عليه السلام وحيري بلى ولكن يطمئن قلبي ها ربي جاي ورميسنا هنا وحنوليسو لكن وحن كرهبا إن أي لابتو يحسشو قلوبتو يحسشو وها عادي أقف والبا مركو الرئيس سو ثيوري أهان وهايو الله إنه أود أن نسكلي هاي يا مركو عندي سوكو أركو وكلا دويني laba qof oo kala duwan buu noqdaa. marka maamada hadalka waxa uu soo dhaxgalay inaan nala socotaan insha Allah taala. maamada wuxuu la jeedaa shalay meeshay taagnayd iyo awoodda Allah subhanahu wa taala sida ay u aaminsaneed inay awood Allah tahay, iyo maanta markii horteeda wax ka dhaceen yaqiinta awoodda Allah ee aragtay subhanahu wa taala. laba qof oo kala duwan bay noqotay.
marka eedda sii wada hadalka insha allah waxyaabihii aad aragtay bal inoo dulmar. caawa qur-aankii markii la isaaray waxaa igu bilowday markii ugu horeysay baqdin badan iyo walwal iyo maxaad mudan doontaa. cabaar ka bacdi sheekhi qur-aanka markuu igu waday meeshaasaa midi la iga geliyey, midi laba dhinacba af kule halkaa la iga suray. nin weyn oo awood, ilaahay baa weyne awood, isagu markaa isbidaayay baa halkaa midi iga geliyey. tooreyda waa u jeedaa tooreyda markuu gelinayo. marka waa wixii iigu horeeyaba aan arkay. tooreydaasaa iigu horeysay qur-aanka markii la igu bilaabay. tooreydii marka waxaan idhi sheekhow toorey baa i haysataa, halkaasa iga haysataa. alla bari buu dhahay, ilaahay bari. ilaahay baryadiisi baan wadnay, qur-aankii sheekhi waday, ilaahay awoodiisi baan arkay subxaanahu watacaala. ninka waa soo orday, wadnuhu iga geliyey toore, isla iyadii buu soo geliyey. tooreydii inta iga haysatay intay usoo wareegtay. tooreydii wuxuu dhahay naftaan kaa qaada, hadda naftaan kaa qaadaya. kabacdina qur-aankii baa sheekii ku waday halkaasuu fuula. waa nin aada u xoog leh. wax yar eedo aan kaa dhex galo si walaaluhu ay bal mar walba update ku helaan. walaalayaal waxaad xasuusataan waxa ay leedahay toorey buu wadnaha iga gelinaya. waa nin ka xoog badan, waa garanaysaa, waa hooyo ujeedaa. nin ka xoog badan, weliba intaasna xoogga iyo weynaanta ku darsada inuu jin yahay. markuu toorey intuu mindi calooshaada ku qabto ku yidhahdo waa ku gelinaya, maxaad isdhihi lahayd? haddaan ku dilaa hudha, haddaan ku dilaya. maxaad is oran lahayd? indhahaagana aad ku arkayso waa baqaysa, waa cabsan lahayd. laakiin wuxuu waxaa u sameynayaa inuu cabsi qofkii ku abuuro. hadduu qofkaasi rumeeyo rabbulcaalamiin oo yidhaahdo cabsan mayo, waxba igama qaadi kartid, waa inuu taagtiga bedelaa. markay tiri maamadu war waxaad sheegaysa waxba kama jiraan, adaa aniga ku dilaya, eragaas isticmaalaysa, adiga ku dilaya tiri maanta maalinka aniga ku dili lahaa wey. mindidii wadnaha intuu ka qaaday madaxa ka saaray, waan ku dilaya haddana yiri. marka bal maamada waxaan usoo galay inaad nala socotaan. marka madaxii markuu kaa saarayna maxaa dhacay? madaxa isagii oo dhan baa fuulay. madaxayguu fuulay, mindidina waa saaray. labada lugood buu ku istaagay, waa soo fororsaday, halkaasuu midida iga saaray. culayskiisa laftirkiisa qoortaydu waa dareemaysa. waa nin aada u weyn, allah weyn oo waaxida. nin baa xad la waayo, ilaahay dadka addoommadiisa unbaa xadda siiyey ka mid ah. wuxuu qabaa dhar isu eg oo fitijaariga soomaalidu dhahdo, oo surwaalku inta horena u wen yahay, intaasuna u dhuuban yahay. waa nin dhisan, waa nin military ah, waa nin ku talagalay mataqaanaa inuu wax uun sameeyo. powerful baa ka muuqday. markii qur-aankii lagu akhriyey oo aan iri ilaahay baa kaa weyn, ilaahay baa kaa weyn, awoodda ilaahay baa jirta, awood mali daciif baa tahay, shadaadiintaa tahay. oo sheekina qur-aankii ku akhrinayo anigana qur-aanku maxay tahay bilfalaq iyo magacyadii ilaahay ku akhrinayo. ninkii waa degay. markuu degay, ninkii markuu inta ka degay dhulku degay, halkaanu ka soo jeestay, halkaasuu yimi. halkaa markuu yimi ninkan geeshuu wataa, waa generaal, geeshuu wataa, ciidan buu wataa, waa buuxaa, gurigu waa buuxaa. sheekho waan baqayaanita, waxaanu ciidan oo askara hubaysan oo adigii mataqaanaa kugu soo jeedo, dee bini aadan baa taa, waa baqaysaa ma ogtaa. sheekho waa buuxaa qolku, ciidama geeshu wataa, ninku ciidankiisii waa kana. waxba maaha buu yiri, qur-aanka ilaahay ku akri. waxayna kaa dhex galo dhoolatuska uu sameynayo ciidanka tirada badan oo guriga keenay. waxaad ku dartaa bal ereyada uu isticmaalayay maxaa ka mid ahaa? boqor baan ahay, wuxuu dhahay waa runta halkaasan iloobeed. waxaan ahay buu yiri anugu nin boqor ah, Mambaasaan deganahay, boqortooyo dhan baan ahay. waxaan waa geeshkaygii, ciidankan anaa wata, anaa boqor buu dhahay, anaa boqor. walaalayaal macnaha markii uu madaxa kasoo degay ninkii isagoo mindidiisii wata, hanjabaadii wadnaha ay socon weysay, madaxii mindida intuu ka qabtay ay arrintiina socon weysay. ninkii waa soo degay, ma intaasoo ku haray? maya, wuxuu isku dayay haddana inuu bal beyj cusub furo oo hanjabaad ah. wuxuu bilaabay inuu ciidankiisa u yeerto. qolkii iyo gurigo dhan ba isqabsaday, wada ciidan qabsadeen. maamadii wahaa qaydisay, cirkiga dhulka waa la tegay yimid. ciidanku waa tiro badan yahay.
ninkii hanjabaad buu sameynaya tiro badan wuxuu bilaabay inuu faano yiraahdo ma taqaanid hawlo khatar faraha la gashay oo Mombasa haysta ciidamaan haysta boqortooyaan leeyahay waa Afrika wada magaalo kamid ayuu sheegay wuxuu yiri halkaas aan deganahay boqortooyaan leeyahay ciidamo aad fara badan baa leeyahay waxba iga maqaali kartid markaasaan waxaan ku yiri maamadaasi niyada ugu degto weydiiyo waxa tiraahdaa boqortooyada aad sheeganaysaa ciidanka tirada badan leh xoog badan ma boqortooyo ka baxsan milkiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo dhulkiisa iyo cirkiisa ka baxsan ba soo boqortooyo ka dhaxdisan dhulka dhexdiisa waa uu ka leexleexdo wuxuu isku dayay inuu arrimo kale ka jawaabo waxaan ku yiraahdaa ka leexanin su'aasha ka jawaab wuxuu yiri maya waa magaalo ku dhex taala dhulka dhexdiisa boqorka ah waxaan ku yiri boqortooyooyinku dhan boqorka u ahaaba hooyada quraanka aan ku akhrinay iskale waa dhimanaysa naftaada badbaadso waa kibray quraanka waa bilaabay ciidamadiisii tirada badnaa bal waxa ku dhacay aan maamada u daayo maxaa ku dhacay ciidamadii tirada badnaa ee guriga soo galay ninkii goodinayay oo boqorka sheeganayay oo magaaladan oo Afrika kamid lahaa ana boqorka oo geeshka watay oo isqaad qaaday ciidankiisii quro Ilaahay awoodiisii buu ku baaba Ilaahay awoodiisa Allah awoodiisa subhanallah Ilaaha mutakabbirka awoodiisa ciidankii ninkii waa baabacay xogaa uu niyad jabay uu arkay in baawar ka weyn haysto in Ilaaha anigu aan ku goodiyayo oo sheeganayo oo magan galayo oo u dhawaaqanayo Ilaah awood badan inuu yahay uu arkay ninkii wuu baqay marka ciidankii xaskusha markuu arkay wuu baqay xagga gabar fadhiday buu gadaasheeda ku gabaday waxaan ku iri sheekhow ninkii gabashu gaaray meel halkaan ku gabanaya wad buu yiri quraanka sheekhina quraanka buu waday ويسان واي ماشي بكسو بخو مeel halkaan banaan u istaag ماشي banaanka markuu istaagay Ilaahay awoodiisa Rabbiga Raxmaanka waxba kama qarsoona laakiin aniga powerka Ilaahay baan ku arka Ilaahay powerkiisa ay tusay wuxuu sameeyay halka markuu istaagay shababkii wuxuu ka soo guray qashin ciida ka badan rahgaboobo in dhala oo remote jiidanaya oo remote-ka bacsaas u waxaysan baa ku jiro xoogaa dheer oo bacdu ku xiran tahay waxay ku xiran tahay raha bacda qashin baa ka buuxa alaab baa ku jira wax daran oo tima iyo balaaya ku jira magacayga kor uga qoran waa shoogay anigi waxaan idhi bas waay waa ku dhamaatay maanta hadiiba milc ku jiiday adiga alaabtaada iyo adduunkaaga shoog ma qaaday sheekhu wuxuu yiri no ha baqin Allah u dhiib arinta Allah magangal Allah urso ilaah awoodiisa qabso ilaah awoodiisa ma qabsada ilaah awoodiisa ma qabsada ilaah magaciisa ma qabsada wuxuu yiri sheekhu waxaad akhridaa bil farq ilaah tawxiidkiisa iyo bil farq baan akhri بعد وافرنت بعد إلهي أودي سبحانه وتعالى ما يكون فرنت راهي إن دهلا بعد وكفرنت راهي هرت واب جبتي أصقواتي أول إن دبا ما هينو إن لا ران ولا ران يلا استعماله كاسوا كداي بعد ما صهري بعد الشيخ وسيا لا معقول إله بريبو أود إلهي قاعد مالك الملك وعيدا صدها عيدا كإلهي عيدا كوين ما تشري إلهي من بريء إلهي من بريء إله جب إله إتوس إله جب إله إتوس إله أود هذا إله أود هذا بس بعد ما يفرنت بعد ساعة مركي وفرنتي مقع يجي يوحي قشنك كتير يوحي واجبتين يقولون دم بس بين نقطين بل إلهي أود يسيء قادرنا مديسة سبحانه وتعالى رب العزة جل وجلاله مسكح على وح قصة لإكرام معها معتسوين كإلهي قفك علمك علي ودين تدح علي وكتابك تدح علي وعلمك إلهي برتي ومباقران كرا دادك يغان علمك بدح جلين معتسدا سوكال مركو أركو يقين هرله يا عابدة هرله يا إسليبة هرله أنا جيبها إسليبة عاو أود إلهي ما نسكو لي wax ku jira aan garan waayay oo mugdi iiga jiray waxa ku jira yaa ka furatay bacdi gubatay iyo bahalkii raahi gubtay bacdi ilaahay awoodiisa way furantay markay furantay waxa ku jira ilmaha ma dheertooda oo horeyna ka xiran gadaal ka xiran oo qaar ka hore dhiiga ku jira qaar ka dhexe waxa ku jira wax
yalow camala oo aan is iri ma wax la miiraybaa furo qalloocan oo saa u qalloocan baa ku dhex jira qaarka dhexe qaarka dambe waxaa ku jira uuska xoolaha oo la tuujiyey iyo isagiyo fadfad yara oo saa ugu wareegsan oo biyaha ku dhex jira de markaasaa alla bari bilowna sheekhiina wuu akhriyey awoodda ilaahay baanu akhrinay ilaahay baan bariyey ilaahay baan magan galay yaa allah waxaan adaa awoodu leh ilaah waxay yihiin ma naqaano ilaahay awoodiisa iyo mucjisadiisu wax aad u weyn weeye maskax bini aadan aan kusoo dhici karin wixii qur-aankii markii lagu akhriyey abeesada adduunka ugu weyn bay noqotay anaa ka baqay halkaa iyo halkaa inta ka dhexleh bay saa isu biliqda waxay leedahay carab dheer oo labadaas ka kala jeexan carabkii bay saas igu soo leedahay anigii bay saa igu soo leedahay carabkii anigii bay saa igu waa baqay shiikho ha biqin buu dhahay ha biqin ilaahay tawagal ilaahay isu dhiib ilaahay bari qaarkii dambaa dabku ka qabsaday dabadii dheeray baa dabkii ka qabsaday wuxuu socdo way rafatay madaxay ka rafatay naag waxaa ka soo baxday naag dheer la dhaho subxaan allah ilaahay awoodiisu fara badanaa wax yar eedo halka igu qabo insha Allah taala si walaalaha aan yani u baraarujiyo walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala sada socotaa wuxuu inoo tilmaamaya quraankiisa kariimka ah wuxuu leeyahay Allah subxaanahu wa tacaala inama yakhsha Allah min cibaadihi alulama ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa ugu taqwa badan ugu cabsi badan oo ka cabsada adoomadiisa caalim cilmiga leh maanta waxyaabaha hadda maamadu ay ka hadlayso hadaladeeda waa dareemaysan marka hore say ahayd iyo marka dambe say u tilmaamayso in ilaahay iimaan u ziyaadiyay in ilaahay awoodiisa ay aragtay waxaasoo dhan waxaa garan kara qofkii maanta indhihiisa ku arka ama qof arkay oo walaalkii ah intuu arkay waliba qalbiga u furo dhageysta hadalkiisa fiican u fahma marka rabbigeen subxaanahu wa tacaala waxaan idin tilmaamayaa sixirolayaasha qaabka ay wax u naqshadaynayaan markuu alla ka hadlay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayay إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إلهي يقول الله سبحانه وتعالى سحرولي مشو دون هجو علمي دون هذا سكست علمي بيسو هو هذا أدفانسد أما مد هرمسه هو هذا الله يقول لي من لي بالي سنة بابي سبحانه وتعالى وحد كفكرتها انت وحياب هذا الاسكو حر فيري اوستا فيري فراها فيري أبيسا فيري naag abeesa ku sii jirta fiiri waxaasoo naqshad ah ninkii watay ee jawaab ku watayna dhabarkeedu ka soo baxay waa dhibkeedii macnaha hadda intaysan maalinka hadda ay arkaysay maalmihii ka horreysay dhabarka iyo qoorta iyo meel walba oo intuu ku jira ah waliba hadalka maamada waxaan rajeynayaa insha Allah taala way soo haldhaaftay marka quraanka cabaar waday waxay bilaabeen inay cararaan jirkeeda waxay bilaabeen inay socdaan waxay isku dayay inuu baxsado kadibna markuu arkay inuu subaxsan karin midigtu soo raacay gacanta bidix oo ka shubmay xasaan lillah halkaas uga shubmay markuu soo shubmay banaanka soo baxay wuxuu leeyahay waxaan jawaabka aan ku wato iyo hawshan iyo waxaan oo dhan waxa la igu talagalay dhabarkaaga ku jiro dhibkan halka ku wado laakiin sheekhana iga soo saaray isagoo marka jaahil ma fahmo quraan iyo Allah ma yaqaan subhanahu wa ta'ala wuxuu arkay wax marka uu arkayo kaliya شيخنا يقصو صاري بير شيخ كما صاري رب العالمين القرآن كتاب صاري لكن واحد ربا ولا فهمتان وحاسو سر ولا نخشدي ولا دياري الله داوني ولا سعودي أركي بعدنا دي بفرق إلهي بفرق والله هذا أركيسان ننكي كو خصبي ما هو يسوي تشويس كيس دورتي يسوي كمتر جالسين خصب بوسود دادي وبقى يا وعكلي وحنا بقى عندي باتي جالسين وانا خصوصا دي ساكي هذا إلهي ببربري abeesadii ugu dambeysay waa tan maamada hadda ay marayso in dab qabsaday ee gubanaysay kadibna naagta ay ka soo baxday naagtii maxaa ku dhacay markii dambe markii hore kale ma ahi waxaan yeeshay geesnimo yeeshay waan arkay ilaahay baawarkiisa markaan hidideela ay galay waxaa rabaaba jinka inaan ugu sheeqo uga hormaro baabaasho because awal waa baqay ilaahay subxaanahu wa tacaala baqdintii wuu iga qaaday baawarkiisii buu i tusay waan yaqiinsaday waan si fiican baan ilaahay u bariyay sheekhina quraanka buu ku daldalay oo ku akhriyay aniguna ilaahay baan bariyay waxaan yaqiinsaday marka naagtaas inay baaba'ayso marka naagtii quraanka markii la saaray waa ay gubatay meeshii bay ku gubatay bartii bay ku basta naagtii iyo rahii
iyo abeesadii iyo bacdii iyo xuduntii iyo wax allaaliya wixii ninkaas hoog iyo ba soo horgufay meeshii bay ku baaba'een dambas bay noqdeen waxaasoo dhan marka ay dhacayaan ninkii muxuu sameynayaa fiirsanaya taagan fiirsanaya awoodda ilahay la yaabay sababtiisii isagoo waliba madluuna markii hore baawar buu isbidaayay anuuba ii gogoodinayo saan u dhahaayay laakiin markaas isagoo madluun ah waad ujeeday inuu madluun yahay ayuu taagan yahay waana ujeedaa hortiisa ilaahay awoodiisa wuxuu samaynayo wuu ujeedaa rabbi subxaanahu watacaala wuxuu samaynaya wuxuu falay dee labada low buu dhigto wuxuu yiri mataqaanaa halla cabaar buu dooday maya cabaar buu dooday waxaa la yiri ma islaamaysaa ilaahay awoodiisa waad ujeedaayo ma qaadanaysaa ilaahay maalinta qiyaama waa ninka mataqaanaa loo soo baxayo bacadka jinni wal insi oo dhahaya yaa maanta maaliku mulki ah maanta yaa boqortooye u sugnaatay jinni wal insi waa dhoobantihiin kulli iyagoo suxsan oo daciif aan awood lahayn yaa ilaahay isaas dhahaya oo ku goodinaya asaga isu jawaabaya ilaahay wuxuu leeyahay ana maalikul mulki aniga waaye maalikul mulki oo adduunka iyo aakhiraba iskale aniga waaye intaas markii uu aan dhahnay ninkii wuxuu dhahay jilbuhu dhigtay wuxuu dhahay waxaan doonayaa maaragtay waxa dhiba ay haysto dhiba ay haysto ilaahay aniga ma aqaani laakiin waan doonayaa inaan barto anigana qafaalkan waa la soo qafaalay maamadan korkeeda waa la igu qafaalay lacag 500 la siiyay eri iyo dhiig baa la ii qalay waxaa la yiri maamada korkeeda adduunkan ku hay gubtay maanta wixii aad ogeydeen oo gubtay korkeeda ku hay baa la yiri waana khasbanahay caruurtaydiina waa la haystaa xoog baa loo haystaa iyo naagtayda xabis ay ku jiraan very good waxaan jeclahay walaaluhu inay nala soo galaan insha Allah taala walaalayaal maamada waxyaabo hadda in xasuusinaysa waxa kamid ah ninkii boqortooyo sheegtay marka hore ciidamo badan oo soo bandhigay uu talagalay ku cabsiyo aayadda hadda in xasuusinayso Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay maalinka qiyaamo marka la tago dadkii oo dhan oo tabar daran malaa'igtu joogto insigu joogo jinnigu joogo kulli ay wada suxsan yihiin muxuu ku oranaya Allah subhanahu wa ta'ala liman al-mulku al-yawm maanta yaa boqortooyo iska yaa maanta boqortooyo ugu haysta hal qof hadli kara kuma jiro waa jinni waa insi waa malaa'ig waa xasharaat waa wax walba nuxnuxsoo dhaqaaqa yawm al-qiyaama ilaahay markii wax u jawaabo uu waayo isaga isku jawaabay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu oranayaa لله الواحد القهار boqortooyo yaaska Allah واحد ka ah ee qahaarka alla kaliya ah khasbina saaxiiba Allah subhanahu wa ta'ala jinka hadda boqorka sheeganaya jirkeeda ku jira dhibka ku hayay banaanka intuu u soo saaray isaga ciidankiisa kala saaray Allah boqortooyo cidna aysan ku haysan markuu arkay awoodiisii oo waxa hortiisa lagu sameeyay arkay jilbuhu dhigtay cabsi bilaabo inuu isdiibo ma hadibto keen inuu yiraahdo waxaan rabaa in Allah rumeeyo subhanahu wa ta'ala su'aasha ku celiyo waxa kamid ahayd maxaa kugu qasbayna Allah rumeeyo miya cabsatay wuxuu yiri maya waxaan arkay awood rabbi subhanahu wa ta'ala intaas ay u filan inaan rumeeyaan rabaa rabbi subhanahu wa ta'ala anigana halla in haristo maanta dhibkaan oo dhan waxa ii keenay maxbuus baan ahaa laftirkeyga مسكين لدوليستان أها نين لا سو خصبي لعق لسيبان أها أنت هدي الله يجهر لها مربا حتى كبح لها هشيسك أنجلي وح يجي سيدنا من عروت تيد محابس والله هيستا إسلامتي عروت والله هيستا والله قفاشي وحنا الله هيستا رحمة ده فرشة أهان هذا الله على دجال كسر نقطة يجعل ربع العنون الدنيا يعني قرط الله ده ريال ربع تاسع مركب وح يوخص بسنة عديها كده قالوا الكلام كده ninkii noocaas ahaa markii sheekada kadib uu Allah rumeeyay subhanahu wa ta'ala qisadiisii maamadan u deynay insha Allah markuu Allah rumeeyay ninkii maxaa dhacay wuxuu yiri waxaan u baahanahay see ilaahay u baranayaa annaga waxaana la baray Jesus Christ inuu ilaahay yahay oo isaga un baana la baray meeshaana wax Jesus Christ ka xog badan wixina la baray wax ka weyn oo mucjiso ah oo rabbaaniye ah u jeeda marka anigu see diinta ku gali karaa see ilaahay iyo diintiisa ugu tagi karaa waxa la ilaahay diintiisa waxa ugu tagi kartaa
mar haddaad islaamtay diin dad waxaa lagu geynayaa masaajid islaamig ah baa lagu geynayaa oo ilaahay diintiisa lagu hayo oo dad mustaxiin ahoo mataqaanaa saalixiinho ay joogaan oo jinni wal insi qofkii soo islaamama la aflixinayo oo qur-aanka loo barayo oo ilaahay wuxuu faray loo sheegayo salaad laga rabo oo soon laga rabo oo kulli wax walba wax kasta oo qofka islaamka lagu waajibiyey. eeda marka aan kaa dhex galo ma isaga oranaya waxaan rabaa diinta inaan barto walaalaha rabaa inaan diinta bartay meel aan ka bartay diinta ma aqaano buu dhahay waan islaamay laakiin hallay caawiyo waxay halka igu celi marka walaalayaal waxaan jeclahay in cibra qisada aan dhageysanayno kaliya aan iska daawano ma aha oo sida waxyaabaha waqtiga lagu lumiyo ma aha macna ku jira xigmad baa ku jirta Rabbiga subhanahu wa ta'ala waxyaabaha wuxuu bandhig ugu sameeynaya oo inoo tusaya in cibra loo noqoto aan wax ku qaadano ninkaani wajin waa boqor sixir inta ka soo shaqeynay muddo badan ku mashquulsanaa maanta markuu yiri ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah markiiba wuxuu ku fakiray inuu raadiyo diintii wax soo baran lahaa inuu ka fakaro waajibka Allah saaray subhanahu wa ta'ala iyo salaadiisi sida uu tukan lahaa inuu ka fakaro soonkii iyo sida uu gadan lahaa inaga dad badan oo naga mid maanta oo muslimiin ah oo intaas laga yaabo inay intaas farac soo ahaayeen muslimiin oo waalidkood ay muslimiin ahaayeen maanta waxa laga yaabaa inaysan tukan waxa laga yaabaa inaysan quraankii aysan akhrisan baranin marka waxaan rabaa waxaas in cibra idin noqoto oo ninka jinka aan ku wadayano nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamayay in jinku inaga fiican yahay marba wuxuu yiri baa leeyahay sallallahu alayhi wasallam jinka idinka fiican arrahmaan markii ilaahay uu soo dejiyay suurada arrahmaan leeyahay markasto ilaahay nimcooyinkiisa mid kamid oo ka soo sheekay rabbi wuxuu lahaa fa bi ayyi aalaa'i rabbikuma tukadiban nimcooyinka rabbi mid keeba diidantiin oo beenaysa in suu dhagweyn oo iska dhageysta jinka wuxuu yiri idinka fiican waxay lahaayeen markasto aayada ay soo martay waxay lahaayeen ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد إله هل نمعوينك كمذا مديدنين من بينين إنه ما هذا لنا أريد أسكنه مرك إن شاء الله تعالى وحرما جنك إن قفي عن إن قضينا إن هنسكودين إن دينتي هذا إن صلاة دي هذا إنه مساجد دي هذا سنة خير كذا إنه أرنتا قصدا ما أنت إنه سوف تعرنتاس مرك إلهي بريد سبحانه وتعالى وتري له مسكين كوالي بي meel uu diinka bartana ma uu haysto anuuna rabaa inaan dad la raadiyo diinta bara ilaahay uu na tus meel aan geeyno oo diinta uu ku barto xagee masaajidka lagu tuso masaajidkii ugu horeeyay oo aan arkay wuxuu ahaa masaajidka ku yaala Hobbs Crossing oo Sheikh Ciise masaajidka Sheikh Ciise waa masaajid magaalada Melbourne ee wadanka Australia ku yaala badan dadka Australia degan baa garan doona insha Allah waa gartay masaajidkii baan tagnay masaajidkii yaa joogay cidna ma joogin oo naga xirmay xilli lagu kala tagay maan ilaahay nagu beegay qadarta ilaahay meeshii cidla iska tagnay kabacdina sheekhi awla soo noqonay waxaan dhahnay war sheekhow meeshii cidla waaye xageen ninkaan geeya مثلا إلهي ما بريدين إلهي ما برينا إلهي بري بوده شيخ إلهي بري لا قوته أنا قوته إلهي ما برينا بريا بدن نستهنان بدن شكر النق بدن كبعد إلهي سبحانه وتعالى وحنا تصي مسجد كوين مدينة مرورة مسجد ما اسكو سيدين مسجد كأوحير لسعسي ولا مساجد ولا محمد الشيخ سوى مسجد النبوي صلى الله عليه وسلم على مساجد كرسولك النبوي مساجد ما تكتين مساجد كمان تقني وبوحة مساجد كتب بدن باكبوحة وجن ينسب عليه وكبوحة لا بضب وبوحة شيخ الناس وكعي إلهي ما بريني إلهي نعاوي ود هذه معجزة هذا وين نعاوي بريا بدن كبعدي شيخ الناس وكعي وين وما شاء الله شرفي كرامك مقدم بالناس وكعي مركن ننكي وحان إيري ننكان وصوم مسلمي وهذا ولال كينها وضع وإسلام وجن وأباهن إنه إلهي وحو كفر لي برتو ودين تبرتو ومتقانا وإلهي وسو نقضي وعباديستو ننكي وحو يري welcome laakiin waxaan ku iri sheekhow ninka aruurtiisa iyo naagtiisa xabis bay ku jiraan oo wuxuu nagu yiri xabis bay ku jiraan baan ku iri markaas uu xabis ku xageeyay xabiska sheekhiba ninkii baa la weydiiyay ninkii wuxuu yiri waa Kenya aruurtii Nairobi baa la iga haystaa iyo naagti
shiikhii markaan u sheegana wuxuu yiri dee alla bari oo caawi dadka gabadhan xiran iyo caruurteeda iyo ninka kula socdo oo muslimay reerka caawi buu dhahay ilaahay baan bariyay ilaahu awoodaada nagu tus ilaahu awoodaada nagu caawi ilaahu awoodaada nagu caawi waxaan soo barina ilaahay bas waa ka soo kacnay madiina waa ka soo kacno Kenya aanu nimid gurigii reerku ku xirxiraa oo suuqi weynaa muxuu ahaa suuqi weynaayo u dhawaa Garissa geeskeeda waqooyi yaa nala soo geliyay gurigii markaanu nimid iridiisii waa istaagnay waa cabsaday anigii ninka wadayba baa cabsaday waa meel dad jeel ah oo jeel dad ku xiran yahay oo karbaashku ka socdo oo jeemanka waaweyn lagu garacaya dadka oo cabaadka ka yeeraya labadii dhagood gawwa baa iga yeedhay ummadda halkaa ku xirxiran gaal iyo muslimba dadku waa isugu jireen qolol dhan oo saa u safan baad arkaysaa darbi dheer oo aan la fuuli karin baa dhinacan ka ah intaas oo tarsiga derbiga tarsiga hoostiisa guriyuhu ku yaalan waa guryo gaagaaban oo xayn ah ilaa 6 ilaa 7 waa buuxaan albaabadooda hore waa bir shabaq oo qof isaab ay wada haystaan iyagoo ooyaya oo cabaadaya oo qaarna Allah buu baleeyahay waa muslim qaarna Jesus Christ iyo balay ku qaylinayaan iyo waxaan la garan karayn ilaahay baan bari waxaan ku waa aad baan u naxay aad baan u khalkhalay sheekhu wuxuu dhahay khalkhalina ilaahay bari ilaahay baan barina quraanki baan la wada ilaahay baan barina bariyaba wax yar ka dhex galo walaalaha seen la socdaan walaalayaal waxaan rabay inaan la socotaan qasada insha Allah taala si fiican u fahantaan masaajidka nabiga markay tagtay sallallahu alayhi wa sallam ninka ay tiri waan arkay oo soo istaagay dadka soo dhex baxay waxay tilmaamaysaa maamul inuu ahaa oday garan cad leh oo xirnay oo aada u ah sujuudna ay wajigiisa ka muuqato nool fara badan oo ka muuqdo wadaadada markaa jinka ka mid ah doonayana inuu soo dhaweeyo ninkan markaa soo muslimay waxyaabaha ay kala hadlaysana macnaha inagu qadaam sunnada jinka ka shaqo inaan adeegsanana lama ogola inaan isdhex galnana ma aha hawlaheena lama ogola laakiin maadaama nin dhibaataysan oo maskiin ah meel uu wax u raadsaday cid uu diin ka raadsadan aysan garanayn markii rabbigeed bariday oo tiri ilaahu itus oo ya caawi ninkan maskiinkaasi aan cid wax bartay u la raadsho masaajidka nabiga sallallahu alayhi wasallam loo geeyo oo jinkii muslimiinta ahaa ee meesha joogay loogu soo adeejinaya hawsha ilaah barto subhanahu wa ta'ala ninkan maskiinka wax la baro ninkii wuxuu yiri ana xilka la wareegay ana diinta Allah baray subhanahu wa ta'ala ka xillo laakiin arintii waxa meesha soo baxday maxaabiista caruurtiisii la haystay oo uu jeclaystay inuu markaa la soo daayo maamada markay tagtay dadka ay leedahay waa cabaadayaan waa la garaacaya waa la karbaashaya dhibaato badan baa lagu hayaa xabsiyada ka buuxaan ay leedahay waa jin iyaguna muslimiin iyo gaalada isugu jira sida insigu wuxuu dulmiyo wuxuu dhibaateeyo jinkuna isku gumaystaan isku dhibaateeyo dulmiga iyo dhibaatadu adduunka waa jiraysaa ilaa Allah subhanahu wa ta'ala loo tago yawm al-qiyamah hadhowtiina uu xisaab adag Allah subhanahu wa ta'ala dadka u kala mariyo saadarteed waxaan leenahay insha Allah ta'ala ma aha kaliya dadka xabsiyada u furan dadka dhibaateynaya oo jin muslimiin iyo gaala aba dhibaya ma aha waxaan leenahay dadka insiga ah iyo dadka jinniga ah labadaba kooda xabsi jooga iyo kan xabsi joogan oo kaliya shakhsi ahba ogaada dulmiga socda rabbul alamin soo hadda wax walba u tusay adoomadiisa buu god kasta iyo waxa ku jira oo socda الله وحده المامية سبحانه وتعالى لقمان مركو لها لقمان الحكمة مركو ويلكي سواني محوكيري ويلكي يروح هدو صحر جرو صحر في صخرة دقح كل حجرة عذك دحديث كل حجرة أو سمادة جرى أما دولك الجوجا يأتي بها الله إلهي وكينا يوم القيامة دقح صحر آدوير أو دقح كل حجرة أما سمية الله أما دولك يا الله مجرو إلا يوم القيامة إلهي وكينا دون سبحانه وتعالى معنى الله وحكى قرصون مجران الله أسمرك هذه اسمه وحكى قرصون محاكو حيقة حسابك كذا بيسا صادرت وحنا لدتك سحرك سمينية دتك هولها دبك كم مشغول سن إنسي جن واحد ولا بهالنقطان إلهي وقبق سبحانه وتعالى وقادنا إن الله سبحانه وتعالى قلبه أركو إن دتك مركا أوجا شيء عبادك يشددي دتك واحد يتلمامسي إن المنصة سلوات أو جوجين لما كانت المام بك بحي قواه وحي نمان أسكر واي نمان كان نمان أسكر واي ونمان حق بدن dadka ugu xoog badan baa loo soo xulaan isiri markay qof ka yara ma jirin dad wada xoog badan oo strong ahaayeen jeeman bay haystaan jeemankan waaweyn baabuurtu markay
lagu xiriiriyo gaarigu markuu kaa fariisto jeemka weyn oo lagu xiriiriyo bay nimankan haystaan oo gacanta ugu duuban dadkii bay la dhacayaan waa ku garaacayaan balowga isqabsanaya oo hinta iscabsanaysa dad laa ilaaha ila allah le waa ka maqlayay dad Jesus Christ le waa ka maqlayay kuwa iskale waa ka maqlayay wax walba qof naf aan lahaynba qof naftu inay dhibaysa aad u jeedido iskale baad arkaysaa ani indhaha kuma dhammayn runtii aad baan uga naxay markaa ka bacdina ilaahay subxaanahu wa tacaala baan dacwad u dira yaa rabbi raxmaan ilaahu kuwan waxba kama qaban kare tan miskiinta ah caruurta xunka haysato xabiska ku jira ilaahu kuwan ilaahu tan noo xore ilaahu tan iyo caruurta noo xore wala ninkeeda waa islaamay ilaahu aduu kuu soo noqday ilaahu awooddaadana tus ilaahu baawarkaagana tus ilaahu mucjisadaadana tus bacdil barya badan iyo qur-aankii oo shiikhu waday waxaan helay mucjisadii ilaahay gabadhii buu noo soo xoreeyey markii gabadhii nimankii ka soo baxeen iyagu iska soo durkiyeen oo ay iyaga iyo annaga dhexdooda joogto baan waxaan ku yiri sheekhow gabadhii waa nolol soo durkiyo intay taagantaa sheekh maxamed markaa u sheegana wuxuu dhahaa dee bisinka qabsoo soo kaxee gabadh bismillaah dheh subxaanallah dheh alla magaciisa qabso gabadha soo kaxee ilaahay magaciisaan qabsaday gabadhii baan soo kaxeeyey ninkeeda yaa arkeen markaa ka bacdi inaan hawshayadii wadana soo ma aha oo meeshiina laka qaabilay iyo madiine aadno oon alla bari gallo oon ilaahay weynayno oon ilaahay nastaano oon ilaahay u shukran naqano oo alla u niri oo ilaahay baawarka badnaa qabsano oo ilaahayna kulligayana dehiyo na kaxeeyey saanu u soconay alla bariga ugu jiray ba ilaahay u xisayay yaa mutakabiru yaa khaaliqu bashar yaa mutakabiru yaa saan u lahaa dhag masaajidkii weynaa baan hor istaagno nabiga sallallahu alayhi wasallam oo madiina sheekhi markii hore na qaabilay baa noo yimid sheekh waa la hadal waxaan ana sheekho waa kana reerkii waa la soo furay ilaahay baana awoodiisa ku soo furay allah subxaanahu wa tacaala baa noo naxariistay ninkii soo islaamay oo alle isu soo dhiibay waa kan caruurtiisina waa la soo furay marka caruurtan iyo ninkan iyo reerkan ilaahay darti iiga qabo ilaahay darti u xanaane ilaahay darti wax u bara allihii abuurtay bara xaqu ka raba bara wuxuu ku waajib yeelay bar sheekhow masaajidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam oo adigu wakiil ka tahay maan aniga isaga wareejiyay dadkan ilaahay baana ii soo dhiibay anigu awoodda ma lihi ilaahay baa ilaa Melbourne Australia ilaa Kenya ilaa Madiina awoodda ilaahay baan ku waday asaa aniga xataa i khasbay waa baawarka iyo mucjisooyinka ilaahay bay ka mid tahay yacni dadka aan aad diinta u baranoo daciifka ma looga sheekeyn karo mucjisadaan wax hadday xataa maqlaan waxay argagaxayaan wax mucjiso ahay ku noqonayaan oo la yaab leh oo maskaxdooda kusoo dhacay laakiin aniga waa yaqiinsanaa ani xataa saasaan ahaa caawa ka hor waxaan dhihi lahaa haddii aan maqli lahaa waa riyoonayaan dadka laakiin life baan u arka ilaahay mucjisooyinkiisu wax walba yihiin wax walba yihiin waa awood badanaha caalamka isagaa xukuma wax walba kunbuu dhahayaa fayakumaaba noqonaya maxaa madiina igeeye ma awood baan leh maxaa Kenya igeeye ma awood baan leh baawarkaas ma lahaan karo waa mucjisada ilaahay marka waxaan ka codsanayaa dadkayga Soomaaliyeed iyo dadka islaamka ahba inay yaqiinsadaan Allah inay isku xiraan inay isaga aaminaan inay quraanka isisaaran quraanku waa mucjisada Allu kamid mucjisooyinka ilaahay buu kamid sababtoo ah inta aan dhaqaatiirta ku wareegay haddaan quraanku wareegi lahaa hawsha soo ma heleen hal week oo aan quraanka ilaahay la igu akhriyay baan baawarka ilaahay ogaaday 27 sanana saasay ii jeedanayaan dhaqaatiir waliba wada gaala ah oo aan waxba ogeyn marka ilaahay mahad waxay uga sugnaatay subxaanahu wa tacaala oo ii naxariistay oo cadowgan ogaa iga hiliyay oo iga furdaashi oo miskiinkii aniga la igu kor qabiray oo la igu kor xiray ya sabab iga dhigay inuu ilaahay hanuuniyo oo xaqa qabsado ma hadaas ilaahay baa iska leh alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahu adaa mahad leh waxaa weeye ilaahu diintaada iyo xaqaaga nagu sug
cido waxyar halkaa insha allah tacaala igu qabo walaalayaal subxaan allah waxaan rajeynayaa qisada cajiibka ah maamada inaad la socotaan allah subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay suurat albaqara la yidhaahdo tusaale wuxuu alla inoogu soo qaaday si wax inoo fahansiiyo nin yiri intuu magaalo soo maray baaba'san oo dhulka taalo oo dhimatay oo waqti hore ahayd dadkeedii iyo iyadiina baaba'een sariir wixii dhan isku dumeen buu alla wuxuu tilmaamayaa ninkii inuu yiri yani sidee ilaahay waxaan usoo nooleynaya magaalada alla wuxuu tilmaamayaa caza wajal ninkii inuu nafta ka qaaday 100 sano uu meyd ahaa kadibna uu soo nooleeyay kadibna su-aalayo yiri meeqaad noolayd meeqaad meyd ahayd markaasuu yiri maalin ama maalin barkay qiimaha adduunka hurdada intay la eg tahay dhimashada yani waxaan aysan waqti qaadanaynin markaasuu yiri maalin ama maalin barkay markaas alla wuxuu yiri subxaana tacaala bal labitha 100 caam ma aha 100 sanaad meyd ahayd ee undur ilaa tacaamika wa sharaabika lam yatasanah bal fiiri cuntadaadii iyo cabitaankaagii isma bedelin cunto iyo cabitaan 100 sano ma dhici kartaa meel inay yaallaan isbedela waxaaba la tilmaamay weliba in xataa caano ahaayeen cabitaanku watay caano bannaan la dhigay 3 beri kadib waa soo uray 100 sano caano hadda isbedeli waayeen ka iyo cuntadii ninkii dameerkiisii lafihiisii ka war hadday baaba'san yihiin markaas inta ilaahay intaa uga sii tegay wuxuu yiri weliba intaa kaliya maahe fiirsa sidaan weliba lafaha isku qabanayno saan wax u nooleynay daawo soo wajada hortiisa lafii la isku qabtay la sameeyay la abuuray markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir marka intaas buu cadaatay wuxuu yiri hadda waxaan ogaaday allah wax walba inuu awoodo subhanahu wa ta'ala qisadan waxaan rabaa walaalayaal inay fahansiiso inaan kulliga wada fahano allah inuu subhanahu wa ta'ala wax badan wax walba allah inuu awoodo subhanahu wa ta'ala inayna fahansiisan doonayna insha Allah ta'ala waxaan idinka codsanayaa nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wa sallam maadaama dhowr jeer ay magaciisa soo celcelisay maamada kulligiin inaad nabiga sallallahu alayhi wa sallam ku sallallahu alayhi wa sallam sidoo kale insha Allah ta'ala waxaan ka codsanayaa walaalaha dhamaato in walaalahan meesha fadhiya dhamaantood loo duceeyo in maamada loo duceeyo in ilaahay caafimaad iyo khayr iyo barako aan dhamaan lahayn kullu isugu daro maama maxaad insha Allah ta'ala walaalahan dhowrka kuna aad waqtigaaga siisay maxaad kula dardaarmaysaa walaalahayga muslimiinta ah waxaan kula dardaarmayaa waliba kuwa afkayga garanaya oo Soomaalida ah sababtoo ah waxa laga yaabaa Carabiga iyo Turkishka iyo afkayga ma garanaya marka walaalaha Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay quraanka Ilaahay isaaraan Ilaahay awoodiisana inay yaqiinsadaan Ilaahayna inay baryaan isbitaal waxba ma taraayo Ilaahay quraankiisa ku carara Ilaahay awoodiisa ku carara Allah isu dhiiba Allah magan gala waxa weeye qof kasta oo jirada waxaan kula dardaarmayaa inuu Ilaahay uu ku cararo oo Ilaahay baryo oo quraanka isaaro quraanku waa shifo laftirkiisaba mucjiso quraanku Ilaahayna waa quwiyo weyn waa Allah kabiirka ah adbu oo awood badan yahay wax aan meel aan filayn iyo wax kaaga keenaya meel aad filayn yuu kaaga soo baxaya qofka isku dhiibana wuu ku filan yahay Allah waa ku filan yahay mucjiso kasta Ilaahay baa leh oo haysta oo powerful ya mutakabbiru shaatigiisa kibirkiisa waa shaatiga kibirku waa shaatigiisa marka walaalahay waxaan ka baryayaa inay quraanka isku dabiibaan inay Ilaahay isu dhiibaan inay isu duleeyaan inay baryaan meel kale oo la carara male dhaqaatiir anaga ku noogay ha aadinina Ilaahay aad warku waa cadiyahay walaalayaal insha Allah ta'ala cidi doonaysa in barnaamijyada dambe aan soo wadnay awooda alle iyo quraanka inuu yahay daawo rabtay la socoto waxaad nagala socon kartaa Facebook-gaas Muhammad Star Ruqya cidi ku cusub waxaan leenahay waxa taabataa like si video kasto aan soo gelin aad u hesho insha Allah ta'ala intaan dib dambe hawada u kulmi doono wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh